marka walaalayaal xuquuqda waalideyntu waa arrin aada iyo aada u weyn. ninkii ilaahay waafajiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala siiyo xaddigiisa iyo nasiibkiisa uu ka dhigo aabihii ama hooyadii oo da-a oo u baahday, ninkii ilaahay siiyow nicmaa ilaahay kuusoo xerogeliyey, barwaaqa ilaahay kuusoo geliyey, jannada albaabkeeda ilaahay ku dhigay. adigu albaabkaas jannada ha iska xoorin. haddaba waad la socotaan, waad maqasheen xadiidka nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam. xadiidka uu yihi waa duco jibriil duceeyey, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna aamiin yihi. maxaad aamiin u leedahay? jibriil baa duceeyey. raqima anf rajulin kabira cindahu waalidaahu falam yadkilaahu ljanna. waxaa baaba-ay oo hoogay oo khasaaray nin aabihii iyo hooyadii ku agweynaadeen ama midkood oysan iyagu sabab u noqon jannada inuu galo, jannada gelin waayo. yacni ixsaanka uu u ixsaan falayo iyo wanaagga uu la imanayo ayuu ku janno mudanayaa. hadduu taa garan waayana haddii jannadii heli maayo, halaag buu ku dhacaya. marka waa nicmo weyn qofkii ilaahay laba waalid uu siiyo, nicmo weyn. waxaanaad ogaataa barako oo dhan iyo khayr oo dhan iyo wanaag oo dhanna in ilaahay meeshaa kuu dhex dhigay. qasooyinku saan idiin sheegay o iska badan yihiin. xajkii dhaweyd, berigii dhaweyd, xajkii hadda ahaa baa nin sheekho masri oo isku wadan ka nimid, qatar ka wadan baa hadlaya. mawduuc wuxuu ku keenay garan maayo, waxayba ahayd maalmihii xajka, lakiin mawduuc cajaa'ib le, yani sheekada buu ka bilaabayba. dad badan buu la hadlaya. wuxuu yihi masar, meesha masar la yidhah baa cimaaro waa taqaanaan, building weyn ayaa gubtay. bahal baa ku qarxay, waa gubatay, cimaaradii o dhan waa gubatay, bel waa isla gubtay. waxaa ku nool buu yihi kamida dadka ku nool, reer ka kooban qof dumara oo caruur leh, oo weliba mid ilmo markaas naaska ay nuujinayso oo radiica, iyo hooyadeed oo duq ah ayaa la nool. intaasa ninkii guriga lahaa ma joogo, waa ka maqan yahy. dabkii baa qabsaday, suu u socday, gurigii buu gaaray. gurigii markuu gaaray, dabkii baa qabsaday. waxay noqotay markaa in laga cararo, inay ilmihii la fakato. marka ilmaheedu waa badan yihiin, marba mid bay daftaa, waa la fakataa, marba mid. waxaa isku soo gaaray, isku qabsaday bu markii ugu dambeysay, dabkii iyo qaraxii ugu weynaa, iyo hooyadeed iyo ilmihii ay dhashay oo markaa radiic ahaa, naaska nuugayay. mid hadday qaada ka kalena qaraxii baa ku dhacay, gaaskii wixii dhan baa isqabsaday. marka waa arrin khatar ahoo waana mowqif xasaasa wey, khatiira. kana ilmahan waa beerkeedii, kana waa hooyadeed, keebay marka wuxuu yihi sheekhu, ilaahay wuxuu waafajiyey inay ilmihii iska dayso hooyadeed ay qaado. hooyadeed ma socon karto, hooyadeed bay daf tiri, la booday, markaasay meeshii ku tuurtay, ay kula cararaysay gurigii kale. sidaadii ay yeeshay baa qurigii isla qarxay, qolkii oo dhan, shaqadii oo dhan baa bug. ma la soo geli kara marka, iyadoo markaa indhaheeda shano ay arkayso ayay meeshii isla dambast noqotay. ilmihii yaraan oo ku jira, dadkii waa la farxay, waa maashi, waa loo, laakiin iyadii ma farxi karto, dee ilmaheedii oo naaska nuugayay bay kasoo tagtay. laakiin maxay badbaadisay hooyadeed? sheekh wuxuu noogu dhaartay, sheekh muwaafi baa leedahay, wuxuu yihi markii la yimid qoladii dabdamiska yimaadeen. ayb meeshii wada dambas bay noqotay. wixii bay marka soo inay kala qaadqaadaan oo bal wixii ilmihii fiiriyaan. sheekha ilaahay magaciisuu ku dhaartay, wallahi buu yihi waxaa loo tegay ilmihii yaraa oo sidiisii u ooyaya, oo wax tinna ayna ka guban, meel la waxba ka gaadhin. guriga intiisii kale xataa sariirtii uu ku jiifay dambas bay noqotay. ilaa ilmahaas yaa badbaadiyey allah rab اlcaalamiin. nabi ibraahim, qulnaa ya naaru kunii bardan wasalaama calى ibraahim, soo mahay qaadirun calى kuli shay. waa dabaan waxba reebaynin. ilmaha yar ilahay baa badbaadiyey, lakin muxuu ku badbaadiyey? sabab bay leedaho, waa sababta hooyadeed. doorashada ay dooratay inay hooyadeed ay ma aragtay door bido, ilmaha ka door bido, ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ku badbaadiyay ilmahaas.
ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ina jeclaado maalinta qiyaamana miisaanka xasanaadka inoo badiyo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa iyo inta sii faafisa fiidiyogan sababtoo ah laga yaabaa qofka aad u sii faafisay dhegaystay khayrkan in uu ku dhaqmo adigana ilaahay uu kugu jeclaado baaraka allaahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu